ugu horeyn anigoo ku hadlaya magaca dawladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed aan afayeenka u ahay waxaanu cambaaraynaynaa ereyada ugu adag ee wax aan bini aadan lagu tilmaami karin lagu cambaareeyo ficilka ugu xun wax sameeyay lagu cambaareeyo yaanu ku cambaaraynaynaa ficilka ka dhacay Afgooye ee lagu waxyeeleeyay loogu xadgudbay laba caruura oo sabi ah waxa halka ka dhacay laguma sheegi karo waxa dadka qaarkiis ku tilmaameen ay yiraahdeen waa kufsi waa taaddi iyo weerar loo geystay magaca Soomaaliyeed loo geystay shacabka Soomaaliyeed qof kasta oo shacabka Soomaaliyeed ayaa wajigiisa ceeb lagu dhigay xumaan lagu dhigay wax bini aadanka adduunku isweydiiyo Soomaalidu waa nooc bini aadan oo noocee ah ayaa lagu dhigay qof kasta oo Soomaaliya kulligan waynu garanaynaa in waxa halka ka dhacay aanu kufsi ahayn ee uu yahay weerar lagu soo qaaday shacabka Soomaaliyeed uu yahay magac dil qof kasta oo Soomaaliya lagu sameeyay la doonayo in dadka Soomaaliyeed laga dhigo dadaan bini aadan caadi ahayn la doonayo waxa sidaas doonaya maaha Soomaali damiir xun baa la adeegsaday Soomaali damiir xun baa la adeegsaday soddonkii sano ee aynu ku jirnay dhibaatada iyo dagaalada sokeeye bilaash gumaynu jirin dad magaca Soomaaliyeed markuu dira burcad badeed oo markuu dira argagixiso oo markuu dira kufsi oo mar shacabka Soomaaliyeed isku diraan ku dila waa dad aan wax maqlin oo xayawaan ah oo isdilaya ayaa maal geliyo waxa sameeya